بسم الله الرحمن الرحيم. horta runtii waa arrin aad iyo aad ayaan daro waa inay waxaan dhacaan mas'uuliyadeeda wax la wixii golaha ka dhacay iyo wixii sharci dembiyad ahaan u dhacay iyo wax la wixii qas Somaliland ku soo foolay sababtay arrintaasi waxa mas'uuliyadeeda qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. sababtuna waxa weeyaan baarlamankii waxa weeyaan way ka shaqeeyeen ururada in la furo si fiican bay u baasgareeyeen madaxweynuhu kala shaqeeyay in la furo golaha goobtiisa uu ka shaqeeyay in la furo madaxweynuhu weliba kharash buu ku bixiyey waa la ansixiyey markii halkaa marayeen xisbiyadu wax alla wax reaction ay ka keeneen raalliday ku noqdeen xisbiyada in la furo iyagoo ay sidaa tahay madaxweynuhu xeerkii la rabay inuu saxiixo sidaa ku dhaqan galo isaga ayaa madmadoobeeyey isaga ayaa tuhun geliyey isaga ayaa gurigiisa ku haystay hadda madaxweynuhu wuxuu sameeyey warqadii oo ku dhacday xafiiskiisa ayuu baagdaytir ku sameeyey khiyaano qaran buu sameeyey been buu qaranka u sheegay baarlamanku been u sheegay waktigeedii baan ku ansixiyey buu yidhi beentu hadday sidaa ku socoto dhib ma lahaateene isla wiiga kan odaya abtiga ee koore oo madaxa afka dowladda ku hadlaya wuxuu sheegay inay warqadda madaxweynuhu been ahayd madaxweynaha inay xafiiskiisa ku dhacday madaxweynuhu inuu forgery warqadda ku soo sameeyay baarlamanka ku gudbiyey balse warqaddu dhacday xisbiyadiina furan yihiin arrinkaa marka ay sidaa tahay baarlamanku kan rabshada abuuray maaha ka isku dilka abuurayna ma aha waan ka xumahay iyadoo Somaliland oo dhan ay jeclaan xisbiyada in la furo anigu aan jeclaa in la furo haddana qaabkan madaxweynuhu u abuuray waxa weeyaan waa qaab uu doonayo baarlamanka inuu ku kala qaybiyo waa qaab uu ma jeedo boqor qaabkee doonayseen haddii madaxweynuhu yidhi xisbiyadii ama ururadii baa la furayaa qaabkaad igu doonaysay jamhuuriyadda Somaliland oo dhan baa rabtay xisbiyadan mushkilad ka qabin madaxweynaha xagga kale uu rabay oo qalibay oo yiri waan soo celiyay xeerkii oo diiday shurtaagii ku sameeyay haddana madaxweynihii isla sidaa sameeyay ayaa maanta baarlamanka kala qaybiyey isaga isku dilay isaga oo ujeedadiisu ay tahay extension maadaama uu doorasho ka guustay maadaama uu haddii la leeyahay ay dhacday uu kala qaybiyey beeshiisii oo madaxweynuhu saldanadii Suweera wali ugu weyneed aanu maanta fara ku hayno Suweera wargacantiisa ka baxay oo beeli habarkii ala ka baxeen oo dadkii garbaa xisbiga ahaa ka dhaxeen madaxweynaha waxay kaga soo urtay sharci darro kurarsiima inuu samaysto kiina wuxuu maray waddo ay in lagu ciqaabo madaxweynaha marka baarlamanka maanta waxa uu ekaa intaanay ka hadlin xeerkan dadkuna waa rabeen horena waa loo rabay iminkana way curin kari lahaayeen xeer xisbiga lagu furo madaxweynuhu dembi qaran buu ku dhacay khiyaamo qaran buu ku dhacay baarlamankan waa aad ugu hanweyneen waxay ka baaqsadeen maanta inay madaxweynaha ku ciqaabaan oo khiyaamada uu sameeyey ee sharcigii beenta ka been abuuray isagii labada jeer marna yidhi xeerkii waan soo celiyey marna uu yidhi xeerku waa dhacay arrinkaa in lagu ciqaabo maxkamadda ugu soo taagayahay boqor maxaad ku caddayneen in madaxweynuhu khiyaamo qaran ku dhacay madaxweynaha inuu khiyaano qaran ku dhacay sida qoraalka ka muuqata 19 maalmood gudahood ayuu ku saxeexay xeerkan uu soo celiyey waxaan ku caddaynayaa xukuumaddu iyada hadda hadashay wasiirka warfaafinta koore ayaa sheegay xeerkaasi inuu dhaqan galay oo madaxweynuhu uu waqtigiisii ku dhacay warqadan in ay forgery tahay waxaa caddeeyey wasiir koore isagaa ku hadlay isagaa afka xukuumadda ku hadlay sidaa laajligeed waxaa cad madaxweynuhu inuu khiyaano qaran sameeyey waxaanay dowladdan iyada afkeeda iskaga caddaysay taasi taa weeye anugu waxaan leeyahay madaxweynuhu waxa weeyaan dalka isagaa sharciyad ku fadhiyey inuu qas ka abuuro iyo inuu kala qaybiyo muhiimadda ula jeedaana waa laba mid madaxweynuhu doorasho ka guustay inuu kororsiimo samaysto iyo in Somaliland intii dambe kala diro oo uu carqalad ku sameeyo Cabdirasaaq Khaliif oo uu sameeyo baarlamanku inay xilqaadin ku sameeyaan oo baarlamanku istiro oo baarlamanku baabo oo beelihii darafiyadu inta qoray ka haysay kursigaas ay Somaliland lagu kala yaaco madaxweynuhu ka shaqeynayay madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayaa maanta xisbiyadii oo haddii aan laga leeyahay doorasho u diyaar ahaa oo haddii aan laga leeyahay maanta u diyaar ahaa inay doorasho galaan
ummadii intaas oo 5 sanadood cid waliba ka quusatay taageerayaashiisa ka quusteen oo maanta doonaya inay kaga nastaan dalkana lagu soo watamxiyo doorasho inuu maanta xagga kale u rogay inuu korartii u jeeda aanu doorasho u jeedino qabanaynin taasna waxaan leeyahay anigu madaxweynaha doorashadiisii waxay ku eg tahay November 13 xisbiyada dhicistoodana way kasii dambeeyaan haddii aan hadda degdeg loo maarin dowladda dhacaysa madaxweynuhu Somaliland vacuum bay ku dhacaysaa madaxweyne sharciyana ma ahaanayo cid u dulqaadanaysa inuu kororsadana ma dhacayso Somaliland markaa milixda la karsaday 5 sano joogay oo maamul xumo la karsaday oo kala irdhay dadkii la kala irdhayay cid alla cid wax weyn rajada qura ay Somaliland qabtay waa doorasho dhacda waxaan aad ugu taageeraa saaxiibadayda xildhibaanada ah ee u ololeynaya xisbiyeyn la furo oo aan ka fekerahaynin muuse inaanu xisbiye furayna inuu kororsino wado inuu sharci darro wado siyaasiyiinta riixaysa xagga dambe ka riixaysa waan ka xumahay ee isla waxa weeyaan xisbiyaa laydin furaya ee baarlamaanka ku kala dhex jira arrintaasi waa nasiib darro weyn anigu waxaan leeyahay run ahaantii meesha inay furan tahay maanta horta madaxweynaha khiyaanada garan uu sameeyey in lagu ciqaabo in impeachment lagu qaado dabadeedna xisbiyada haddaynu furanaynana ay baarlamaanka inoo ka shaqeeyaan haddii aan la furayna haddii aan la doorasho la galo qodobka kale waxaan leeyahay international communitygu madaxweynuhu waa qaswade waa spoiler inay madaxweynaha u aqoonsadaan spoiler qaswadaha oo aan dalka doorasho u wadin oo aan nabadgelyada ka shaqaynayn oo aan isku wadka ummadda ka shaqaynayn oo haddii aan la leeyahay dictatornimo 2001 maanta taagan doonaya inuu dalka dictatornimo ku abuuro arrimahaasi waxa weeyaan boqor adigu muqdisho ayaad ku sugan tahay doorashooyinka Soomaaliya iyo kala xulista xildhibaanada Soomaaliya ayaad ka shaqaynaysaa arrimaha Somaliland ee doorashada iyo arrimahan dadku waxay isweydiinayaan maxaa ka galay maadaama doorashooyinka Soomaaliya ka shaqaynayay Muqdisho nabadayn baan u joogaa Muqdisho doorasho kama shaqaynayo nabadayntana waa tii aan Puntland u tagi jiray waa taan halkan u tagi jiray waa qaar Afrika oo dhan u jeeda laakiin soo irgooyinka waxaan ka shaqaynayaa isku haynta anigu waxaan ka shaqaynayaa midnimada Somaliland waxaan ka shaqaynayaa horumarka Somaliland waan ka hadlay waxaan ka shaqaynayaa midnimada Somaliland iyo wax qabashadeeda waxaan ka dagaalamayaa in la kala qaybiyo Somaliland waxaan ka dagaalamayaa in faragelin lagu sameeyo anigu meesha tan waxaan u joogaa nabadayn baan u joogaa dadkaygii iyo haddii aan laga leeyahay inay Soomaaliya iyo Muqdisho dowladdu uga dhalato waxba kama qabo laakiin anigu kama shaqaynayo maanta wax Somaliland liddi ku ah wax kala qaybinaya wax dhibaato u keenaya laakiin waxa faraaq kula jira madaxweynaha ummadda dooratay ee sharciyada yeelay xeer baa madaxweynuhu uu soo saaray in dadka ka qayb galay siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira aan dib loo cafiyi doonin xeerkaasi inuu ku saameynayo ma ogtahay wax alla wax saameynaya ma jiraan madaxweynuhu isagu xeer ma curiyo xeer dejin maaha qofku xorriyad buu leeyahay dastuurku qaanuuniisi wuxuu siiyey oo fikirkiisa iyo arrinkiisa iyo xarakaadkiisa iyo shaqadiisa u madax banaanayo madaxweynuhu kama dikriyay kuma soo saari karo kama qaadi karo qofku hadduu dembi galana hay'adaha sharcigu iskooda ugu madax bannaan yihiin inay qabtaan waxa weeyaan sharcigii uu abuyus garaynayo waxay cadaynaysaa dictatornimadiisa waxay cadaynaysaa maxkamadu inaanay madax bannaanayn waxay cadaynaysaa baarlamaanku inaanu madax bannaanin isagu xeer ma curin karo qof xuquuqdiisa ma qaadi karo kuma soo saari karo jaahilnimada iyo haddii aan laga leeyahay askarinimadan aan tababarka qabin ee wax walba qorta la iskaga duwaya markhaati ka tahay caalamkuna arkaya aad iyo aad baad mahadsan tahay boqor Cusmaan Maxamuud Buur Madow ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramay